Turkiga ayaa daaha ka rogay isbahaysigii ugu horreeyay oo Islaami ah si uu u soo saaro dagaalyahanada jiilka shanaad. Dhowaan warshadaha difaaca Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay soo gabagabeeyaan heshiis ay la galeen Pakistan iyo Azerbaijan si ay u soo saaraan dagaalyahanada qarsoodiga ee jiilka shanaad ee nooca FX. Isla arrinka oo kale Turkigu waxa uu sii wadaa dadaalkiisa uu ku horumarinayo diyaaradaha dagaalkiisa qaranka ee loo yaqaan TFX. dhanka kale Turkiga waxa uu caddeeyay rabitaankiisa xooggan ee uu ku doonayo inuu ku yeesho siyaasad madax bannaan oo dhinaca wax soo saarka iyo horumarinta warshadaha gaashaandhigga kana fog baahida dalalka reer galbeedka. Arrintani ayaa kor u sii kacday kadib xiriirka sii xumaanaya ee ka dhex taagan Turkiga iyo Maraykanka. madaxa ururka warshadaha difaaca Turkiga Ismaaciil Damiir ayaa sheegay inay door bidayaan in MMU ay noqoto mashruuc caalami ah sida diyaaradaha F-35. sidaasi darteed waxay ku talinayaan inay isticmaalaan diyaaradahooda dagaalyahanada qarsoodiga waddamada saaxiibka iyo kuwa xulafada sida Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Malaysia iyo Indonesia. kadib markii Turkiga laga saaray barnaamijka diyaaradaha dagaalyahanada F-35 markii uu soo iibsaday nidaamka difaaca hawada ee Ruushka S-400 ayaa waxa uu ku khasbanaaday inay bilaabaan diraasad si ay u samayn lahaayeen diyaaradaha gaarka ah ee jiilka shanaad. saraakiisha difaaca Turkiga iyo kuwa dowladda Pakistan ayaa kulan heer sare ah qaatay, waxaana kulankii ugu dambeeyay uu dhacay bishii Janaayo ee sanadkan. kulankan oo ku saabsanaa soo saarista agabka militari ee wadajirka sidii loo soo saari lahaa diyaaradaha qarsoodiga ee jiilka shanaad.